tababaraha caalamiga ee jaamac maxamuud aadan jaamac karaaciine ayaa la kulmay boqorka dalka Bahrain boqor Xamed bin Ciisa al Khalifa. tababare jaamac karaaciin ayaa casuumad rasmi ah ka helay boqorka Bahrain kadib markii gabadh u urdeysay dalka Bahrain oo uu jaamac karaaciin u ahaa tababare ay ku guuleysatay kaalinta labaad ee orodka 10,000 mitir ee ciyaarihii Olympiga ee ka dhacay magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Japan. gabadhan orodyahanka oo lagu magacaabo kalkadine ayaa jaamac karaaciin uu tababaro u ahaa ilaa sanadkii 2018 iyagoo u soo hooyay dalka Bahrain biladii ugu horeysay ee ay ka helaan ciyaaraha Olympiga. arrintan ayaa uu boqorka Bahrain ku maamusay tababare jaamac karaaciin isagoo ugu mahadnaqay guusha uu keenay dalka Bahrain. tababare jaamac karaaciin muddadii uu tababaraha ahaa wuxuu ku guuleystay 37 biladood oo ciyaaraha orodada adduunka ama World Championka iyo waliba 6 biladood oo ciyaaraha Olympic Championka kuwaas oo ay ku guuleysteen ciyaartooygii uu tababaraha u ahaa. tababare jaamac karaaciin ayaa sidoo kale keenay oo ku guuleystay 17 world record oo aan ilaa imika la jabin, iyadoo guulaha uu gaadhayna ay ahaayeen kuwii keenay in 2 jeer loo doorto tababaraha ugu fiican caalamka. ugu dambeyntii tababare jaamac karaaciin ayaa boqorka dalka Bahrain kala hadlay sidii dalka Bahrain ay xiriir saaxiibtinimo iyo mid siyaasadeedba ay ula yeelan lahaayeen dalka Somaliland, iyadoo boqorkuna uu arrinta aad u soo dhaweeyay. barkhad cabdilaahi maxamed, Home Cable TV.